السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا la socotaan maalmihii ugu dambeeyay waxa dagaal xoogan uu dhaxmarayay ciidamada Ukrainiyiinta iyo ciidamada Ruushka uu ku dhaxmarayo afartii gobol ee Ruushka uu sheegtay inuu ka goosto wadanka Ukraine isla markaana uu ku biireen wadankooda Ruushka. Si walba haatay ciidamada Ukrainiyiinta ayaa horumar badan ka soo sameynaya dhanka dagaalka waxayna isku dayayaan inay dib u riixaan ciidamada Ruushiyaanka. Ciidamada Ukrainiyiinta ayaa waxay awood badan ay ama xoog soo saareen dhanka magaalada Kherson iyaga oo markaasi qabsaday magaalada lagu magacaabo Zolotelka Balka iyo magaalada Melkayevka lagu magacaabo haddaba sidaas oo kale ciidamada Ruushiyaanka iyagana aad ay isku difaacayaan waxayna ay duqeyn xagga hawada ah ay ku dileen ciidamo badan oo Ukrainiyiinta. dhanka kale ciidamada Ukrainiyiinta laf ahaantooda iyagana waxay ku dagaalamayaan wax walba awoodooda ay ka mid tahay diyaaradaha loo yaqaan droneska ee dalka Turkiga lagu farsameeyay loo yaqaan Bayraktar waxayna ku dileen agaarka wabiga lagu magacaabo Dnipro ay waxay ku dileen ciidamo badan oo Ruushiyaan ah oo markaasi ku gambanayay taangiyada dalkaasi Ruushka waxaana halkaas lagu dilay ciidamo badan oo Ruushiyaan ah. haddaba dhanka kale ciidamada Ukrainiyiinta ma aha oo kaliya Kherson magaalada ay yoolka saarayaan ama ay doonayaan inay ka riixaan ciidamada Ruushiyaanka sidaas oo kale waxa weerar xoogan oo ka socda magaalada Donbas waxaana la soo sheegayaa in ciidamada Ukrainiyiinta ay qabsadeen magaalo lagu magacaabo Leman oo ka tirsan gobolkaasi Donbas. Leman waa magaalo istiraatiiji ah oo isla markaana isku xirta isla markaana ah wado tareen oo isku xirta oo ka timaada magaalada Kharkiv iyo Donbas. ciidamada Ruushiyaanka waxay lumiyeen magaaladaas istiraatiijiga ee lagu magacaabo Leman oo isku soo xiraysa wadada tareenka ee ka timaada Kharkiv iyo Donbas waxaana la sheegayaa in ciidamada Ukrainiyiinta ay markaan u sahlanaan doonto in hubkooda taangiyada ah ay soo saaran doonaan tareenada soo aadaya dhanka magaalada Donbas iyagoo ka keenaya magaalada Kharkiv. magaalada Leman sidaan hore idinku sheegay Ruushiyaanka waxay u ahayd magaalo muhiim u ahayd oo tareenada ay u adeegsan jireen hubkooda taangiyada iyo waxaas inay ku rartaan laakiin hadda waxay u sahlanaan doontaa ciidamada Ukrainiyiinta. si walba haatee dagaalka aad iyo aad ayuu u sii adkaanaya ciidamada Mareykanka ayaa waxa la soo sheegaya inay hub badan ugu sii deeqayaan wadanka Ukraine sidaas oo kale Ingiriiskana isagana wuxuu hub badan ugu sii deeqayaa wadanka Ukraine. si walba haatee warar degdeg oo sidaas oo kale soo dhacaya ayaa hadda waxay sheegayaan in madaxweynaha dalka Ruushka uu u magacaabay hogaamiyaha Chechnya inuu ka dhigi doono generaalada ugu sareeya ee dagaalka hogaamin doona waa sida uu Vladimir Putin oo goor ku dhawaaqay. dagaalku wajiyo badan ayuu hadda sii yeelanaya sidaan horeyba idinku sheegay waxayna noqon doontaa mid sidii hore la filayay ma aha mid ka duwan. dagaalkana waxa inta badan uu ka socda afartii gobol oo Ruushka uu sheegtay in uu ka gooyay wadanka Ukraine. إن شاء الله وحي كسو كردا ديب أيان كلا سو سعودسين دونا دقالكاسي يوكرين إي حالدها يوروب كجرا.